wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa shirka wasiirada gaadiidka Carabta uga qayb galay magaalo xeebeedka Al-Iskandariya ee Masar. shirka oo ahaa mid sanadkiiba mar ay yeeshaan wasiirada gaadiidka Carabta ayaa waxaa lagu qabtay hoolka Akaademiyadda Culuumta Gaadiidka hoos timaada Jaamacadda Carabta. wasiirada gaadiidka Carabta ayaa shirka ka hor looga warbixiyay habka ay akaademiyadda u shaqeyso, waxaana loo soo bandhigay qaar ka mid ah ardayda dhigata akaademiyadda kuwaas oo ay ka mid yihiin arday Soomaali ah. intaa kadib waxaa furmay kulanka wasiirada gaadiidka Jaamacadda Carabta oo looga hadlayay sidii dawladaha Carabta u xoojin lahaayeen iskaashiga gaadiidka Carabta, iyadoo la soo jeediyay in dawladda Falastiin laga caawiyo dhaqaalaha gaadiidka. waxaana soo jeedintaasi kalsooni u muujiyay wasiirka, isagoo sheegay in mar waliba dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay garab istaagga walaalahooda reer Falastiin, waxaana sidaasi awgeed shirka lagu go'aamiyay in dawladda Falastiin laga caawiyo dhaqaalaha gaadiidka. dhanka kale wasiirka ayaa shir gaar ah la yeeshay dhiggiisa Masar, isagoo kala hadlay xoojinta labada wasaaradood iyo soo celinta iskaashiga gaadiidka. sidoo kale wasiirka ayaa la kulmay madaxweynaha Akaademiyadda Culuumta Gaadiidka, isagoo ka codsaday in la siyaadsho deeqaha waxbarasho ee ardayda Soomaaliyeed ay ka helaan akaademiyadda iyo in wasaaradda loo soo diro koox farsamo oo ka caawiso dejinta siyaasadda gaadiidka. sanadkan alxamdulillah dad badan ayaa ka soo qayb galay, wasiirro badan oo ayaa ka soo qayb galay. waxaa ka soo baxay 5 shay oo muhiim ah iyo waxyaabo kale oo tiro badan. shantooda waxaa ugu horeeyay qodobka ah in dawladda Falastiin laga caawiyo dhaqaalaha gaadiidka dhaqaalihiisa in laga caawiyo. nambarka labaad dawladda Masar ayaa waxay soo codsatay in xafiis ay ka furtaan hay'adda IMO inay ka furato xafiis. dawladda Masar ayaa soo qadimtay oo tiri xafiiskaasi ay rabaan inay Masar ka furtaan, marka dawladaha Carabtana way ku raaceen. tan saddexaad waxa weeyaan in European Unionka dawladaha midowga Yurub hay'adiisa duulimaadka hawada shuruucdooda ay soo dejisteen qaar ka mid ah in la adabta gareeyo oo lagu raacay oo la yiri hal lagu dhaqmo. taasna mid aad iyo aad muhiim u ah ayay noo ahayd in iyo iskaashiga dawladaha Carabta dhinaca gaadiidka iyo sidii loo horumarin lahaa. intaas ayaa runtii ugu muhiimsanaa inta aan shirka ka soo baxay wasiirka gaadiidka ee dalka Masar, oo aan ku heshiinay in labada wadan aan bilowno sidii ay si dhab ah isaga kaashan lahaayeen dhinaca gaadiidka. waxaan la kulannay madaxweynaha jaamacaddaasi oo naga ballan qaaday in ardayda Soomaaliyeed ee wadankeena jirta iyo in kor loo soo qaado waxbarashada dadka Soomaaliyeed ee dhinaca gaadiidka inuu nagala shaqeynayo. ugu dambeyn wasiirka ayaa casuumaad gaar ah u sameeyay 5 arday oo dhigata Akaademiyadda Culuumta Gaadiidka, waxaana kula dardaarmay inay si laba jibaaraan dadaalkooda waxbarasho, isagoo ku dhiirigeliyay inay yihiin mustaqbalka dalka.